السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك صاحبي dhammaantiin waxaan rajeynaa inaad si nabad ah xafideen. Muuqaalkeeni caawa waa muuqaal aad u xiiso badan anfici doona dhammaan dhalinyarada ay ku adag tahay inay aqoon iibsadaan ama aanan awoodin inay lacagta jaalanjida aqoonka ay iska bixiyaan. Sidoo kale muuqaalkani wuxuu si toos u anfici doonaa dhammaan dhalinyarada iyadana skills-ka leh ee awoodi kara inay suuqa lacag sameeyaan. Sidaan wada ognahay shirkadda Found the Next bishaan hadda nagu soo aadan July waxay bilaabi doonaan barnaamij cusub oo ah barnaamijyadan aqoonka competition-ka la sameyn doono oo qof allaala qofkii ugu far badan ee aqoon guru sameeya ama lacag aqoonka ku dara uu ku guuleysan doono aqooman. Sidaan wada ognahay shirkadihii kale Found the Next way ka duwan tahay oo challenge-gan hadda ay soo kordhisay ilaa waxay bixin doonaan $30,000 oo cash ahaan u bixin doonaan. Sidoo kale aqoon challenge ahaan waxay u bixin doonaan lacag gaaraysa $2.757 million oo aqooman ah. Dhammaan guuleystayaasha ku guuleysto challenge-gan ama competition-ka intuu socdo ayaa lacagahan iyo aqoomankan heli doono. Mid walba waa kugu sharxi doonaa qaabka aad tartankan ugu qayb gali doonto, ruleskiisii iyo sida lagu kala guuleysan lahaa lacagaha iyo aqoomanka. Haddii aan isla sii fiirino saaxiibayaal, waxaa halkan ka arki kartiin ama sawirkeenii labaad halkan ka arki kartiin sida aqoomanka loogu kala guuleysanayo. Aqoomanka waxaa loogu kala guuleysanaa sida hadda qoraalkan caadiga aad ugu jeediin. Kaalinta koowaad qofka gala wuxuu heli doonaa $300,000 aqoon challenge ah iyo $7,000. Qofkani waa qofka ugu faa'iidada badan ee dadka tartanka qaybka ka ah. Qofka ugu faa'iidada badan ee kaalinta koowaad gala ayaa 30 beri intuu tartanka socdo ayaa heli doona $300,000 iyo $7,000 oo cash ah. Kaalinta labaadna $200,000 ilaa $3,000 oo cash heli doonaa. Kaalinta saddexaad qofkii galana wuxuu heli doonaa $2,000 oo cash ah iyo $100,000. Marka waxaa ujeedaa ilaa kaalinta boqolaad dadka gala waxay heli doonaan aqoon 50k ah oo shirkadaha kale sida wada ogahay keliya kaalinta koowaad ilaa kaalinta saddexaad ayay sameeyaan. Kuwa qaarna kaalinta koowaad ilaa kaalinta labaatanaad keliya ayay tartankooda ugu talagalaan inay dadka lacag ku siiyaan. Laakiin Found the Next waxaa ujeedaa ilaa boqolaad inay meesha ujeedid. Sidoo kale waxaa kusii dhiman dadka gala kaalinta boqolaad ilaa kaalinta lix boqolaad 50 ka mid ah ayay lottery u sameyn doonaan oo 50kaas ka mid ah kuwii ku guuleysta ayaa lotterygaas waxay heli doonaan aqoon $6,000 ah. Marka waa qaabkii loogu guuleysan lahaayay aqoomanka iyo lacagaha la heli lahaayay. Haddii aan fiirino qaybta ruleska tartanka waxba kama duwano aqoomankooda caadiga ah. Waxaa ujeedaa drawdown-kiisii balancega laga tirinayo 5% loss lagu ogolyahay maalintii. Khasaaraha guud waa 10%. 5 trading days inaad sameyso newska waa lagu ogolyahay. Commissionkii $3 waaye habeenkii waa heesan kartaa. Akoonkiis waa free waaye. Sidoo kale waxaa ujeediin ma la ogolo. Qaybtana ugu muhiimsan oo waxaa ujeediin maximum lot size-ka qofka loo ogol yahay waa $5 per position-kii. It means haddaad trade gelaysid waa inaad ku gashaa trade-kaasi 5 lot inaad ku gashaa oo ka badan ku geli kartid markii forex-ka la joogo. Sidoo kale markii la joogo xagga index-kana keliya 3 lot ayaad ku geli kartaa. Ayadan waa ruleska ugu muhiimsan. Ruleska kale waxaa ujeediin 5 trading position keliya ayaad hayn kartaa oo 5 trade hal mar haddaad furto 5taas trade waa hayn kartaa. Haddii trade lixaad aad furto akoonka waa laga xiri doonaa. Sharciga kale ugu dambeeyo ama xiga asan wuxuu yahay keliya hal aqoon in qofka lagu ogol yahay. Sidoo kale akoonka lagu challenge gareynayana oo tartanka lagu bilaabayana waa $100,000. Hadda waxaa ku tusi doonaa qaabkaad iskaga diiwaan gelinayso tartankan. Keliya hal beri ayaa ka dhiman oo ka faa'iidaysi wacan. tartanka 1 bisha wuu bilaaban doonaa oo taariikhda maanta 30 bisha waaye. Keliya 24 saac ayaa ka harsan inka yar. 24 saac kadib aad ka faa'iidaysatid tartankan bishaan waa ka qayb gali doontaa. Haddii uu ku dhaafana waxay noqonaysaa 1 July lagu gaaro in bisha kale August aad siiso. Sidee iskaga diiwaan geli kartaa marka? Ugu horreyn waxaa sameysaa linkigan soo koobi garay. Linkigan waa linkiga aniga aan ku leeyahay Found the Next. Sidoo kale linkigan wuxuu wataa 5% discount haddii aad iska diiwaan geliso. Sidoo kale waxaad awoodi kartaa inaad tartanka kaga qayb gasho. Marka waxaa sameyn doontaa linkigaad soo qaadaysaa. Meesha ayaad basta ku leedahay. Kadibna searching ayaa leedahay.
oo si toos wuxuu kugu geyn doonaa website-ka. Marka waxaa ku tusi doonaa qaabkaad iskaga diiwaangelin laheeday website-ka markii la joogo. So waxaad imaanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay client area. Haddii hore aad iskaga diiwaangelisay way kuu fududahay login aad samaynaysaa gudahaad galaysaa kadibna qaybta competition-ka aad iska diiwaangelinay. Qof cusub haddaad tahay registration-kaas aad taabanaysaa oo waxaan rabaa inaan ku tusiyo bilow si qof cusub hadda isdiiwaangelinayo aan iskaga dhigo maadaama aan horey aniga iskaga diiwaangeliyey. So meeshaan xogtaada buuxi, first name-kaaga buuxi, email address-kaaga, password u samayso, last name-ka iyo waddankaan geli, xogtaana buu buuxi doonaa kadibna waan isku soo laaban doonaa insha Allah. So xogteedii waa buuxiyey saaxiibayaal kadib waxaad samayn doontaa meeshaan ay ku qoran tahay ayaa click siinaysaa, qaybta labaadna click siinaysaa kadibna waxaad taabanaysaa registration oo si toos ayaad iskaga diiwaangelisay. Email-kaagii ayaa waxaa kugu soo dhici doono fariintii isdiiwaangelinta kadib waxaad samayn doontaa password-kii aad iska diiwaangelisay ayaa halkan gelinaysaa si aad gudaha ugu sii gasho oo aad tartankii uga qayb gasho. So password-kaygaan gelinayaa oo kadibna gudaha ayaan si toos u gali doonaa. Kadib markii aad password-kaaga geliso wuxuu si toos kuu geyn doonaa dashboard-kii funded next halkaasoo ah meeshii aad tartankani uga qayb geli laheeday oo iskaga diiwaangelin laheeday. Waxaa ujeedin saaxiibayaal si toos ah inuu hadda iskugu keenay dashboard-keeni gudaha. Waxaa halkan noogu muuqdo dashboard-keeni kadib qaybtan escape ayaa leedahay oo muhiim inoo maaha. So meesha aan u socdo waxay tahay waxaad samayn doontaa qaybta hoos ayaad usoo jiidi doontaa si aan u aragno qaybta competition-ka. So qaybta competition-ka waa meeshii aad iskaga diiwaangelin laheeday si tartankani aad uga qayb gasho oo waxaad ka arkaysaa qaybtaani. So qaybta competition-ka hadda waa qaybtan hadda joogno. Waxaad samayn doontaa qaybta competition-ka ayaad click siinaysaa. qaybta competition-ka ayaad ku dhufanaysaa. qaybta competition-ka markii aad ku dhufato si toos ah wuxuu kuu geyn doonaa competition-kii ay qabanayaan funded next. So haddii aad dib u sii fiiriso waxaa ujeedaa in uu bilaaban doono competition-ka July 1-deedii sidoo kale uu dhammaan doono July 31-deedii. Lacagta lagu bixinayana ay tahay $30,000 oo cash ah. Sidoo kale account 2.75 aqooma challenge ah ay bixin doonaan. Already waxaa ujeedaa 30,000 oo qofood ayaa iska diiwaangelisay keliya one day ayaa ka dhiman xiliga uu challenge bilaaban lahaa. So wax kale ma samayn lahayd click meeshaan register aad ku dhufanaysaa kadib si toos ah email-kaad isku diiwaangelisay ayaa waxaa kugu soo dhici doono xogta MT4-kii aad ku trade gareyn laheeday. So meeshaas ayaad kala socon doontaa xogtaadii. Waxaa ujeedaa in xogta email noogu diray okay aan leenahay kadib email-kaaga tag oo ah email-kii aad horey iskaga diiwaangelisay. Meeshaas ayaad waxaad ka heli kartaa xogta MT4-ka aad ku trade gareyn doonto. So tartanka hadda ma bilaaban waxaa ka dhiman 24 saacadood. Markii la gaaro 1-da bisha ayuu si toos ah tartanka u bilaaban doonaa oo ka hor wax trade ah ma furi kartid ilaa laga gaarayo xilliga aan hadda kuu sheegay oo ah 1-da July. So waxaa ujeediyey saaxiibayaal in email-kii la iisoo diray ee xogteedii MT4-ka iyo kulli ay ku qoran tahay oo waxaa ujeedaa sidoo kale aqooman lagu guuleysanayo inay meeshaan ku wada cad yihiin. Aqoomada lagu guuleysanayo inay meeshaan ku wada cad yihiin. So haddii qaybta hoosaad sii wado waxaad arki doontaa xogta MT5-ka iyo password-kaad ku gali laheyd. So sidaas ayaad iskaga diiwaangelinaysaa tartanka my funded next. So waxaad rajeynaa dhammaantiin in muuqaalkan ka wada faa'iideysan doontaan oo aad tartankan ka wada qayb gali doontaan. Waxaan rajeynayaa qof Soomaali ka mid ah inaan ku arki doono dadka ku guuleysta tartanka. So sidaas waxay ka tagay. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.